السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa Grand Online Academy. magacaygu waa Dr. Mohamed Osman aadan waxaan ahay macalinka bixiya kooraska biochemistry. maanta waxaynu qaadanaynaa cashar kamid ah casharaanteennii aynu ku qaadanaynay kooraska biochemistry. casharkan oo dabcan ku saabsan waxa loo yaqaano Hemoglobin A1c ku saabsan. haddaba casharkan intaanan si detail ama si faahfaahsan aan u gelin waxaan ku wargelinayaa dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee barata xirfadaha kala duwan ee caafimaadka in طبعا كورسكن oo isdiiwaangelintiisa ay socoto inay iska diiwaangeliyaan nambaranta hoos idinka soo bixi doona. sidoo kale waxaan ka codsanayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed in ay videogan like garayaan, sidoo kale ay share garayaan oo ay meel fog gaarsiiyaan si dabcan dhammaan ummadda Soomaaliyeed uga faa'iideysato. haddaba koorskan haddaan soo noqono ku saabsan waxa loo yaqaano Hemoglobin A1c. Hemoglobin A1c waxay ka mid tahay waa mid ka mid ah hemoglobinska laga helo marka adult bloodka ama dhiiggeena laga helo dhiigga adultska. si guud haddaynu si yar kooban ugu durmarno waxa loo yaqaano hemoglobin waa maado laga helo red blood cellska ama unugyada dhiigga cascas. shaqada ugu weyn ee qabataan ay tahay dabcan inay qaado oxygen-ta jirka ay kasoo qaado samabada qaybaha kale ee jirkan ay geyso, isla markaana ay kasoo qaado carbon dioxide ay tissue-ga soo saaraan oo ay u gudbiso dabcan samabada ay ku celiso. hemoglobin structure ahaan waxay ka kooban tahay laba qaybood, qayb loo yaqaano heme oo aan protein ahayn iyo qayb protein oo loo yaqaano dabcan globin loo yaqaano. marka hemoglobinska laga helo circulationka dhiiggeena ilaa 4 nooc baa jira. mid loo yaqaano hemoglobin A oo dabcan ilaa 90% ka ah, mid loo yaqaano hemoglobin A2 oo laba oo ka macni 2 to 3% kamid ah marka boqolleyda ay ka tahay hemoglobinska, iyo mid loo yaqaano dabcan hemoglobin F mid loo yaqaano oo less than 2% ka noqonaysa marka adult hemoglobinska, iyo tan maanta aynu qaadano loo yaqaano hemoglobin A1c ama glycated hemoglobin loo yaqaano oo iyaduna sida caadiga ah ka ah 4% ilaa iyo 6% ka noqonaysa. marka hemoglobin A1c maxay tahay, say u samaysantaa bal aynu eegno. طبعا under physiological conditions xaaladaha normalka wax kasta markay normal yihiin sugar molecules sonkaraha ay ugu muhiimsan tahay glucose ayaa lagu xiraa qaab non enzymatically aan enzymes aan dedejinayn reaction kaasi ayaa lagu xiraa marka glucose ayaa lagu xiriyaa hemoglobin A. processka lagu xiro waxa loo yaqaan dabcan glycation ayaa loo yaqaanaa. marka waxa la isku xirayaa meesha sonkaraha ay ugu muhiimsan tahay glucose ayaa lagu xiriyaa hemoglobin A. qaabka ugu xirmaana waa non enzymatic way, dabcan qaab aan enzymes aan falgalkaas aan dedejinayn. processkana saynu sheegno waxa loo yaqaan glycation baa loo yaqaanaa. haddaba xadka ama extentiga uu glycation ku dhacayo ama sonkortu glucose ay ku xirmayso hemoglobin A-ga waxay ku xiran tahay kolba inta ay tahay qadarka sonkorta ee dhiigga ku jirta ayay markaa ku xiran tahay. haddaba most abundant form of glycated hemoglobin nooca ugu badan ee macnaheedu hemoglobin A-da sugarta ay ku xiran tahay ayaa loo yaqaana hemoglobin A1c loo yaqaana. dabcan kuwa kale way jiraan laakiin hemoglobin A ay ku xiran tahay sugar ta ugu badan waxa loo yaqaana hemoglobin A1c ayaa loo yaqaanaa. haddaba qaabkay waxaasoo dhan waxay u dhacayaan glucose residues ama sonkorta glucose ayaa waxaa lagu xirayaa amino groupka. dabcan waxaynu ognahay amino acidsku inay ka kooban yihiin qayb amino group iyo qaar carboxyl group inay ka kooban yihiin. marka glucose ayaa waxaa lagu xirayaa amino groupka ay leeyihiin amino groupta ku taalo waliba n terminalka valines amino acid valine ee ku taala marka beta globin chainska. marka amino acidska ku yaala marka beta globin chainska gaar ahaan amino acid loo yaqaano valine amino groupkeega ayaa waxa lagu xiri doonaa sugarka glucose ayaa lagu xiri doonaa. diagramkeeda hoose wuxuu inoo muujinayaa tusaale ahaan haddaynu kan kasoo qaadno labadii beta globin chain maadaama hemoglobin A ay ka kooban tahay 2 beta ah iyo 2 alpha ah. dabcan halka ay sugarta ku xirmaysaa waa qaybta betada weeyaane. labadii beta haddaynu kana betada kasoo qaadano n terminalkayga amino groupkii, halkana betadii kale aan kasoo qaadano amino group ku taalo, halkan aynu markaa inoo taalo labadii beta globin chain. halkan sawirkan waxaa inooga muuqda dabcan glucose molecule-kii oo ay dabcan structure-kiisa sawirna ayaa inooga muuqda. dabcan waxaa dhici doona glucose ayaa waxay ku xirmi doontaa amino groupkan ay leedahay marka valintan ku taala beta globin chainska. marka sawirkan wuxuu inoo muujinayaa
iyadoo ay isqabsadeen glucose ay ku xidhantay amino groupka ay leedahay beta globin chainska waliba faaliinta ku taalamka beta globin chainska marka ay dabcan glucose ku xidhanto ama ay isku xidhmaan ay sugarka ay isku xidhmaan glucose markay ku xidhanto waxa loo yaqaano beta globin chainka lagama remove gareeyo ama kama go'do glucose taasi sida ama qaabkaas ay ugu jirtaa inta uu jiro cimriga ama life spanka red blood cellska oo ah muddada 120 cisho ah sidaa daraadeed increased hemoglobin A1c hemoglobin A1c badata hadii jeer waxaa lagu arkaa patientada diabetiga ah ama red blood cellska patientada diabetiga ah waayo hemoglobin A-doodu waxa ay dabcan leedahay higher glucose concentration glucose aad fara badan ayaa ku jirta marka dhiiga muddada uu RBC-gu cimrigiisu yahay uu jiro ee muddada 120 cisho ah sidaa daraadeed hemoglobin A1c waxa ay sheegtaa meanka ama average-ka glucose ee 12 week ama 3 bilood ee u dambeysay qofkaas marka ay noo sheegaysaa sidaa daraadeed waa sababta aynu hemoglobin A1c u cabirno 3 biloodba mar aynu u cabirno qiyaastaas ay dabcan noo sheegaysaa si dabcan loola socdo qofka glycemia ama sugar levelkiisa si qofkaasi loola socdo dabcan casharkan oo faahfaahsan oo intan aad uga faahfaahsan waxaynu ku dhex qaadan doonaa fasalka gudihiisa ayaynu ku dhex qaadan doonaa waa macallin maxamed oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh